السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول بوال إسويدين جري محلنا على وضح سمايا قرحية ما سيدي وايد بدنا تهم كاس قبوا جرين، لكن ما أنت محل لقبتي حرة حلالة وحال لقبتي أو يعينك الجوجا أي قبتين عسكريان أو كوسيدين دونا باور بنجيجا موبايل اللي قد بيست باور بنجي والحديث أي كجران maado walxaha qarxa ah oo waliba nooca waqtiga ku xadidan ah waqtiga markuu dhalaalana kadib waqtiga uu bilaabmaayo daqiiqada tirqad markay 00 isgeyso sakanadii la qabtay ay ka bilaabatay eber noqotana haw qofka ku dhahaaya subhanallah hamal wax walba ku jiray sida aawadeed codka iyo muuqaalada iyo wixii kale oo aan gacanta ku haynaan kula wadaaga ka hor laakiin waxa rabaatan inay digniin ummadda Soomaaliyeed u noqoto waayo dhibaatadaas hadaa maanta la qaban lahayn oo askartaas aysan ka hortagi lahayn ummad kale oo Soomaaliya wax ku gaari lahaa lama huraan sida aawadeed xitaa waxa dhici karta qof keenna naga mid ah oo raba inuu dukaan wax ka soo iibsado in farsamada noocan oo kale loo hoos geliyo asagoo uu iska soo qaatiyo boorsiis ku wata power bank oo malay inuu wato waxyaabaha electronic laakiin baashay ku taakaysanta oo meel ciidan markuu maraayn ay haw ku dhahaad hadhow asaga waxa la leeyahay naftii hali uu ahaa waa nin iska miskiin oo kale wax walba dhici kara adna dukaan ka soo iibsatay sida aawadeed digniin ahaan ha noqoto fariintan yaa la dhalsanin meel dheer hala gaarsiiyo aad u dheer hala gaarsiiyo sababtoo qof walba ku imaan kartaa halis waa arintan askariga ayaan dhageysanaynaa warkiisa oo aan soo khulaasaynay wuxuu ku hadlayaa luqadda Swahiliga. This is a time bomb made in terms of power bank. asaga dabcan hawshii wadaa waana hadlaa meesha uu laga qabtay wuxuu ku sheegay Marina Gate meesha la yiraahdo Marine Gate oo Marine Market afwan Marine Market waa xirada dhexdeeda dukaan ku yaala sida ay dad badan ay xaqiijiyeen waxa uu leeyahay qolofka power bangiga waa uu u egyahay laakiin waa bambada nooca waqtiga ku xiran tirada tirsiga xisaabeedka ku programsan waxay bilaabataa marka uu dhalaalo ayuu leeyahay maadada ku jirta meesha la dhaxgeliyay markaas oo tiradii ay isku xirtay saacada ay gaarto eber ayaana uu qarax sameeyay ayuu leeyahay suuqa Marina Market xirada dhexdeeda ayaa lagu farsameeyay sidoo hadalku dhigaysa waxa kale oo uu leeyahay askarigan waa qarax halisa ama qatara wuxuu uu qarxi lahaa uu leeyahay hadayna ka gaari lahayn waxa kale oo warkiisa ku dhex jira oo uu xusay in qof uu ka dhex iibsaday xirada suuqa xalana ku taala suuqa ku yaal xirada xalana waa la qabtay uu leeyahay power bank ahaan ayaa looga gaday qofka waxa laga yaabaa uu leeyahay in gudaha soo geliyay kooxda dowladnimada ka soo horjeeday shabaab laakiin wuxuu leeyahay waa wax local manufacturing oo ah gudaha wax lagu soo sameeyay ama lagu soo saaray sawirada aan helnayna waxay muujinayaan sida u jeedaan waxa power bank la hoos geliyay weynin badan power bank-gan laakiin power bank weynin badan waay subhanallah waa kana power bank xaqu yaala adeero adiga bateri looga ku dhibay laakiin alaabtan lagu hoos taakay sida u jeedid xaasa laga soo saaray waana runtii arin hal khatarteeda leh arin la dheelaysan kara ma aha sababta loo dheelaysan karin waa in marka koowaad iyo marka labaad magaalada aan ku noolnahay ee caasimadeena Muqdisho iyo guud ahaan wadankeena oo xaalad ku jiro colkuna wax kasta u adeegsan karo hadowga shabaab waxa ogtiin in laga guuleystay laakiin hadda farsamo kasta oo ay la imaan karaan ay sameeyaan isku daygoodu waa badan yahay hadday ayagu sameeyeen ama hadii xirada xalan laga farsameeyayba Allahu a'lam power bank in walxahan la dhaxgeliyo hal abuur ay ku imaaday taas mid lamid inay ka sameeyaan dukaamada oo ay geeyaan alaabo san u farsamaysanna waxba lama aha oo adoo iska doonay mobile waxa ku dabeysatid inta soo gadatid boorsada ku ridatid magaalada la dhaxmaraayo kugu haado dadna aa galaafato adigina dhow aad magac xun ku raaco qofka dhaqan kartan aysan jirin wax dhici kara waa sida aawadeed ilaahay maad u sugnaatay markoodii mar labaad hadiiba la qabtay arintan idinka digniin ahaan loo qaato wax la dheelsada ma aha waxa hada alaab gadanaysidna meel aaminsan tahay ka gado meel walba oo electroniga oo aan iskala kulanto waxa ka iibsanin ma aha inaan ganacsi dhuntu istaaga laakiin farsamooyinka noocan waa badan yihiin waxa aniga ku talina ilgaar in loo yeesho laga adeeganayo farsamada
isqaladka noocaana isku hoosgelinta waa imaan kartaa ninkan dukaan soo iibsay sida la sheegay lagu qabta alaabtan waliba meel kamida meelaha ugu amaanka badan sida la aaminsan yahay ayuu ka soo gatay meeshiyaaba ay ugu dhaxtaakeysneed maxaa milaysan kartaa marka maxaa adiga malaysan kartaa arin caadi ma aha assalamu alaykum asante sana. This is a time bomb made in terms of power bank. Afanye BG amenunua hii afanye toisi BG amenunua hii power bank kutoka kwa Marine Market Mogadishu. Amekuja amewahi kufanyisa hii ndani ana containers mbili mwenyeko ndani walifill na aluminium. So aluminium iko kitu mwenyeko resistant sana na heat. Anachukua muda kumelt. So motor kikamata mzuri akimelt ndio anaripuka. So alikuwa baada hajamelde kufika level ya kuripuka ndani. This is not a power bank. This is a time bomb ambao waliweka in terms of power bank ambao anaanza kusabua kwa 100 akifika 0 barabara inaripuka. Nimesaidia yeye alikuwa baada hajasabua kwa 100 hajafika 0 kisha hajaripuka. Alafu ya pili ukiona namna wameconnect mawaya hizo ndani iko local kabisa. Unaona hapa hii cap iko man made muda aliweza kuweka. Unaona walijifunika hii container hii alifunika local kabisa na angalia anajua kujua hivyo. Alafu power bank hapana kuwa na chuma hii. Hii chuma iko ngumu sana kwa power bank. This is fragment ambao wameconceal nyuma ya makaa hii hivyo na hii vile aliweka ya kwake hivyo ambao akiripuke hiyo chuma ndio anagawa fragment anampiga. So hiyo ndio chenye iko kwa hiyo power bank. This is not a power bank. Hii walifanyisa container wameconceal in terms of power bank lakini sio power bank. Asante sana. This is a time bomb made in terms of power bank. Afanye BG amenunua hii afanye toisi BG amenunua hii power bank kutoka kwa Marine Market Mogadishu. Amekuja amewahi kufanyisa hii ndani ana containers mbili mwenyeko ndani walifill na aluminium. So aluminium iko kitu mwenyeko resistant sana na heat. Anachukua muda kumelt. So motor kikamata mzuri akimelt ndio anaripuka. So alikuwa baada hajamelde kufika level ya kuripuka ndani. This is not a power bank. This is a time bomb ambao waliweka in terms of power bank ambao anaanza kusabua